islaanta nabiga aflagaadeysay baan dad arkayay leh aan ka fiirsanay hadalkooda waa qof waalan leh ma waalee way miyir qabtaa idinku waxaad aragteen qof waalan oo qaanuunka waddanka kala garanayo iska ilaalinaya inuu ku qaldamo xisaabta lacagta u soo dhacda xidhanayo oon shilin ka qaldamin gaarigiisa watoo waddada laydadka ka istaaga gurigiisana u galbada adduunyadana kala goosha oon weytingii iyo diyaaradduu raacaya ka qaldamin markii nabiga la caayayana waa la waalan yaho garasho ma laha waxaas qof miyir qaba looma akhriyo qof wax garanayana looma sheego inta kale caqligayga waan qabaa marka nabiga caayana waan waalah waxaas ma shaqayso waxaas yaan la idiin sheegin beenta ah qofkani wuu miyir qabaa ma waalla wuxuu sameeyeyna kas iyo ku talagal buu u sameeyey innagoon dhalan qarniganna aan jirin xukunka sharciga waxaa qofka sameeyana uu yiilay qur-aanka ku soo degay xukunku xukun hadda la dhalinaya ma aha masale la ijtihaadayana maaha masale ijtihaad hadda ahna ma aha waa masale kitaabka iyo sunnaduna sheegeen xukunkeedana xilligii nabiga fulay qofka gadaal ka yimid ee sameeyana isagaa khadkii xirnaa kocsaa ka sugu dhacay isagaa galay cidi kuma ridin waajibka dadka muslimiinta ahi guud ahaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan rumaysnaya waxaa waajib ku ah dhammaan inay bologareeyaan waxaa xumaanta inaad dhegaysato dhegahaagu maqlaan cayda nabiga war jacaylka raaraadinta iska daaya waxaasoo dhan waxay u baahan tahay waa dhexdaas waxaan arkaya qolyaha heesayo dowlad bay wax ka sheegeenoo taageerayaashii dowladdan isleeg waxa la yidhahda sameeyo waa laga saaray haddee in yar dowlado taageersanaa intay farta u foorariyeen laga saaray inta nabiga la caayiyey ama malaayiin baa fartaasa daqiiqad foorarisan haba la saare oo horta meeluu ku yaalla ku jiraba hala waaye marka koowaad marka labaad qofka lacagdoonka ah ee cayda nabiga dad badan ha soo galaan oo youtube lacag kaga hela leh ma intaad u buuxisaan baad lacagta inaad kown ugu shubaysaan isnaad wada bologaraysaan wey adigiiba haddaad sii gelayso oo hadafkii cayda laga lahaa nabigaba aad sii xaqiijinayso ood sii camirayso lacagna ugu sii shubaysaay ma caydii nabiga iyo fidinteedaaad qayb ka qaadatay bise ka hortagga aad qayb ka tahay fal bay u baahan tahay ee af iyo eray uma baahna waxa ugu yaree fal aan samayn karnana soo lama nabigu ma dhihi alai salatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan halkan adcafu liimaanku iska xidh waaye wixii ka soo haray muxuu yahay lawad wey sii sheergaree wey anna ii soo dir waaye waxaa inta aad qaybiso caydii baad qayb ka tahay wax baciida maaha xukunkii laftiisa inaad qaadato adoo samayn kara inaad qayb ka noqoto ka hortagga iyo tirtirkana inuu jiroo lacag lagu helaad qayb ka noqoto kolla dembi ka badbaadi maysa ma gaaraysaa gaalnimada iyo dadkii caayayna waa masalo baaristeeda u baahan masaladani ma fududa waa cirdigii iyo sharaftii nebi maxamed sal slam asalkeeduna shiica iyo munaafiqiin bay ka soo jeedaa caaisho nabiga in lagu duro 9 miyay ahaydna xamar bay ahayd mid soomaaliya la istaagay dasuuqi oo isla mas'aladan lafteeda uu ku durayay marka munaafiqiintu way soo celceliyaan ilaahay ka cabsada qaybinta ka daaya ku garabsiinta ka daaya ka hortaggeedana qayb ka noqda ilahi subxaana wa tacaala xaqa allah inagu sugo ilahina subxaana wa tacaala iimaan iyo islaamnimana allah nagu nooleeyo iyadana allah inagu dilo islaanta nabiga aflagaadeysay baan dad arkayay leh aan ka fiirsanay hadalkooda waa qof waalan leh
ma waalle way miyir qabtaa. idinku waxaad aragteen qof alanoo qaanuunka waddanka kala garanayo o iska ilaalinaya inuu ku qaldamo, xisaabta lacagta u soo dhacda xidhanayoon shilin ka qaldamin, gaarigiisa watoo waddada laydadka ka istaaga gurigiisana u galbada, adduunyadana kala goosha oon weytingii iyo diyaaradduu raacaya ka qaldamin, markii nabiga la caayayana waa la waalan yaho garasho ma laha. waxaas qof miyir qaba looma akhriyo, qof wax garanayana looma sheego. inta kale caqligayga waan qabaa, marka nabiga caayana waan waallahay, waxaas ma shaqayso. waxaas yaan la idiin sheegin beenta ah. qofkani wuu miyir qabaa, ma waalla. wuxuu sameeyeyna kas iyo ku talagal buu u sameeyey. innagoon dhalan qarniganna aan jirin xukunka sharciga waxaa qofka sameeyana uu yiilay qur-aanka ku soo degay. xukunku xukun hadda la dhalinaya ma aha, masale la ijtihaadayana maaha, masale ijtihaad hadda ahna ma aha. waa masalo kitaabka iyo sunnaduna sheegeen, xukunkeedana xilligii nabiga fulay. qofka gadaal ka yimid ee sameeyana isagaa khadkii xirnaa kocsaa ka sugu dhacay, isagaa galay, cidi kuma ridin. waajibka dadka muslimiinta ahi guud ahaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan iraahdo, waxaan rumaysnayaa waxaa waajib ku ah dhammaan inay bologareeyaan. waxaa xumaanta inaad dhegaysato, dhegahaagu maqlaan cayda nabiga, war jacaylka raadinta iska daaya. waxaasoo dhan waxay u baahan tahay. waa dhexdaas waxaan arkaya qolyaha heesayo dowlad bay wax ka sheegeenoo taageerayaashii dowladdan islaag waxa la yidhahda sameeyo waa laga saaray. waa dee in yar dowlado taageersanaa intay farta u foorariyeen laga saaray, inta nabiga la caayiyey ama malaayiin baa fartaa saacad daqiiqad foorarisan haba la saare oo horta meeluu ku yaalla ku jiraba hala waayo. marka koowaad. marka labaad, qofka lacag doonka ah ee cayda nabiga dad badan ha soo galaan oo YouTube lacag kaga hela leh, ma intaad u buuxisaan baad lacagta inaad ka ugu shubaysaan, misaad wada bologaraysaan wey. adigiiba haddaad sii gelayso oo hadafkii cayda laga lahaa nabigaba aad sii xaqiijinayso ood sii camirayso, lacagna ugu sii shubaysaay, ma caydii nabiga iyo fidinteedaaad qayb ka qaadatay bise ka hortagga aad qayb ka tahay? fal bay u baahan tahay ee af iyo eray uma baahna. waxa ugu yaree fal aan samayn karnana soo lama nabigu ma dhihi calayhi salaatu wasalaam, man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan. halkan adcafu liimaanku iska xidh waaye. wixii ka soo haray muxuu yahay? lawad weeye, sii sheergaree weeye, anna ii soo dir waaye. waxaa inta aad qaybiso caydii baad qayb ka tahay. wax baciida maaha xukunkii laftiisa inaad qaadato, adoo samayn kara inaad qayb ka noqoto ka hortagga iyo tirtirkana inuu jiro lacag lagu helaad qayb ka noqoto, kolla dembi ka badbaadi maysa. ma gaadhaysaa gaalnimada iyo dadkii caayayna waa masalo baaristeeda u baahan. masaladani ma fududa, waa cirdigii iyo sharaftii nebi maxamed sal ly slam. asalkeeduna shiica iyo munaafiqiin bay ka soo jeedaa. caaisha nabiga in lagu duro 99kii miyay ahaydna xamar bay ahayd mid Soomaaliya la istaagay dasuuqi oo isla mas'aladan lafteeda uu ku durayay. marka munaafiqiintu way soo celceliyaan. ilaahay ka cabsada, qaybinta ka daaya, ku garabsiinta ka daaya, ka hortaggeedana qayb ka noqda. ilahi subxaana wa tacaala xaqa allah inagu sugo. ilahina subxaana wa tacaala iimaan iyo islaamnimana allah nagu nooleeyo.